باريس أي BBC ده سميسي أي برنامج لغو صور دقي شبكات عروض كتهريبية تنزانيا أو كينيا جيسا قار بدن أي والد كود لقلا وريجي يجوا الله بلنقاضي نول ونكسن تابدل كذا عروض وحال لغو قصبا إن أي ودوين ككتوك سدان سنة هالك كوا صو وطينا أي قاتان لمان العكتة BBC أفريقيا أي عاوسي هل دبنا أو بحثي إيمان عبد الله محمد أي كور رميسا in ka badan hal sano Afrika ay waxa ay baaris ku waday ganacsiga arxan darrada ah ee loo geysto caruurta nooxada ah ee laga keeno Tanzania kuwaas oo ku tuugsada wadanka Kenya wadooyinka magaalada Nairobi waxa ku sugan boqolaal caruur ah qaar badan oo kamid ahna waa la ilaalinaya wiilkan ayaa waxa uu fiiriyay ilaalihiisa ilbiriqsiyo gudahood ayaa meeshii laga kaxeeyay oh my gosh Afrika ay waxa ay baaritaankan kula kulantay daraasiin caruur ah oo tuugsada sheekadoodu waa kuwa naxariis darro ah Fara waxa uu adoon u ahaa tahriibayaal ku dhawaad kala bar noloshiisa waxa uu sanadkii qaadan jiray lacag u dhiganta $6,000 balse kooxda soo afduubtay ayaa ka qaada inta uu shaqeeyo waxa uu sheegay in ay gooyeen dhammaan xiriirkii uu la lahaa qoyskiisa Afrika ay ayaa dul istaagtay goobta lagu hayo Faraka iyo kuwa kaloo la mid ah 15 daqiiqo gudahood waxay goobjoog u ahaayeen in ay arkaan daraasiin caruur ah oo loo dirayo si ay u dawarsadaan tan sanadkii hore tiradu way sii kordhaysay gaar ahaan Nairobi waxaana arkaysaa inay joogaan aad bay ugu nugul yihiin qatar kasta kooxdu waxay u safreen Tanzania halkaas ayay kula kulmeen wariye Florence Majani waxay sheegtay in dadka wax tahriibiya ay beegsadaan qoysaska saboolka ah iyagoo u ballan qaadaya caruurtooda nolol wanaagsan intooda badani waxay ku nool yihiin nolol faqiir ah iyo xaalad aad u liidata markaas ay imanaysaa fursad ah in Tanzania laga kaxeeyo oo Nairobi la geeyo waxay u maleeyaan in caruurta la taageerayo waxay la soo laaban doonaan maalmaha kamid ah iyagoo wata lacag xooga ah qoyskan ayaa 2017 ilmahooga naafada ah u dhiibay kuwa wax tahriibiya kurwa waxay ahayd 9 jir ilaa iyo hadda war lagama hayo waxa dhibaato aad u xun loo geystay hooyadeed aad ay u qaldanaayeen in ay ka xistaan Fara ayaa ugu dambeyntii u sheegay Afrika ay in si joogto ah loo garaaco haddii uusan samayn lacag ku filan Afrika ay ayaa isla markiiba wargelisay booliiska Nairobi saraakiisha ayaa qaaday weeraro isdaba joog ah waxay hal guri ka heleen ilmo yar iyo 5 qof oo kale oo lagu hayo qol aan daaqad lahayn 2 nin ayaa la xiray waxaana lagu eedeeyay in ay ka ganacsanayeen dadka waana ay beeniyeen eedeymahaas haddaadan kicin waa ku jiidi doonaa haddaba i qaado oo isku day Fara ayaa ugu dambeyntii xor noqday Fara waa booliiska waxay u yimaadeen in ay ku badbaadiyaan dhowr bilood kadib Fara waxaa la geeyay guri lagu daryeelo ilaa inta uu la kulmi doono qoyskiisa